dalka galbeedka Afrika ee Niger ayaa waxaa ku jira xukun militari kadib afgembigii xukunka loogu tuuray madaxweyne Maxamed Bazoum oo ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan ilaaladiisa. Julaay 2-8-2023 hogaamiyaasha afgembiga ayaa u magacaabay Generaal Abdurrahmane Tiani inuu yahay madaxa cusub ee qaranka, halka goobjoogayaasha caalamiga ah ay ku baaqeen in dib loo rakibo xeerarka dimuqraadiyadda. Ma cadda halka uu dalka ka dhacay inqilaabku iyo waxa xigi doona. Wadahadalku wuxuu u jeestay Leonardo Afilan, saynisyahan siyaasadeed iyo khabiir galbeedka Afrika ee Jaamacadda Florida, jawaabaha qaar. Sidee buu ku yimid afgembigan? Markii hore ma cadda in tani xitaa ay tahay afgembi. Inkasta oo ay jireen calaamado muujinaya xiisado dagaal oo u dhexeeya ciidamada militariga iyo hogaamiyaasha rayidka, haddana lama filayn inqilaab. Waxaan joogay Niger bishii hore, mana jirin wax muujinaya in afgembi uu dhici doono. Si ka duwan wixii ka dhacay Mali ama Burkina Faso sannadihii la soo dhaafay, afgembiga kamay hormarin mudaharaadyo baahsan ama baaqiyo dadweyne oo ku aadan isbeddelka hoggaanka. Markii xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyadu ay qabsadeen Bazoum 26 Luulyo, si dhaqso ah uma cadda waxa socda iyo in ficiladoodu guulaysan doonaan. Tijaabadii ugu horreysay ee dhabta ah ee hogaamiyayaasha afgembiga sameeyey waxay ahayd bal in ciidamada intiisa kale ay taageerayaan falalkooda. Haddii aysan sidaas yeelin, waxay keeni kartaa in dalka uu ka dhaco dagaal baahsan. Balse waxa ay noqotay ilaa hadda ugu yaraan inqilaab aan dhiig ku daadan. Kadib markii hore ay ku murmeen kooxo kala duwan oo ku saabsan cidda gacanta ku haysa, generaalada dalka ayaa taageeray afgembiga. Dhanka kale, madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ayaa weli lagu haystaa xabsi guri. Maxaa ka dhashay afgembiga? Inkastoo ilaa hadda uu yahay afgembi aan dhiig ku daadan, haddana cawaaqib xumada ka dhalatay ayaa ah masiibo ku habsatay Niger iyo gobolka. Qaranku waxa uu ka mid yahay kuwa dunida ugu horumarsan oo leh heerar faqri ah oo soo maray xasilooni darro iyo afgembi. Laakiin waxay soo ifbaxday sannadihii u dambeeyey inay tahay ciidan xasiloon oo gobolka ah iyo inay tahay xulafada muhiimka ah ee reer galbeedka si ay ula tacaalaan argagixisada iyo rabshadaha soo noqnoqday tan iyo afgembigii ka dhacay dalka deriska la ah ee Mali 2-2. Dhacdadaas lafteeda ayaa kicisay faragelinta NATO. Liibiya iyo dhicitaankii Muammar al-Qadaafi waxay bilowday xasilooni darro 10 sano ah oo gobolka ah. Sidaas oo ay tahay 2 sano ka hor, Niger waxa ay aragtay markii ugu horreysay abid si dimuqraadi ah oo xukunka looga wareejiyo madaxweyne la doortay una guuro kan xiga. Doorashadu sinaba umay qumanayn, balse waxaa loo arkayay guul la taaban karo. Taasi waa sababta afgembigani uu si gaar ah dhib u leeyahay. Waxa uu ka dhigan yahay dib u dhac ku yimi horumarka laga sameeyey sannadihii u dambeeyey ee si tartiib ah loo dhisayo hay'ado dawladeed oo shaqeeya iyo geedi socod dimuqraadi ah. Afgembiga ayaa sidoo kale cawaaqib weyn ku leh gobolka. Mali iyo Burkina Faso oo daris la ah ayaa ka gooy gumaystihii Faransiiska iyo guud ahaan reer galbeedka, waxayna u dhaqaaqeen dhanka Ruushka. Dhanka kale, Chad oo daris kale ah ayaa ku howlan dadaal dhibaato leh oo loogu gudbayo dawlad la soo doortay. Waddamadan ka dhanka ah, Niger waxa ay matalaysay isbahaysi dhab ah oo ay hogaaminayaan shicibku dadaalada caalamiga ah ee lagu joojinayo qulqulka rabshadaha jihaadoonka ah ee gobolka saaxil. Ma hayno calaamad cad xilligan sida hogaamiyayaasha militariga cusub ee Niger ay isu waafajin doonaan xaaladdan. Maxay tani kaga duwan tahay afgembiyadii hore ee Niger? Taasi waa waxa runtii xiisaha leh. Dalka Niger ayaa inta badan lagu tilmaamaa mid u nugul inqilaabyada. Laakiin afgembi kasta oo hore, duruufuhu waxay u oggolaadeen hogaamiyayaasha inqilaabku inay marmarsiyo u sameeyaan falalkooda sida lagama maarmaanka ah, ama ugu yaraan inay yihiin kuwa la aqbali karo oo la fahmi karo sababo macquul ah. Laakiin taasi uma muuqato mid run u ah la wareegitaan ugu dambeysay ee militariga. Inqilaabkii ugu horreeyey ee Niger 1974 waxa uu dhacay iyada oo ay jirto abaar ba'an iyo macaluul ka dhacday gobolka saaxil.
taasi waxay abuurtay niyad jab iyo niyad jab ku yimid khaladaadkii dowladda